waa tixanaha saddexaad waxa uu inooga bilaabanayaa halkan. Hannibal iyo ciidankiisii ayaa dhexda ka galay ciidan cuduud xooggan ee boqortooyada Roomaanka. halka ciidamadiisii lugta kuwooday ugu khatarta badan ay dhinacyada kaga yimaadeen ciidamadii Roomaanka. ciidamadii Roomaanka ayaa dhulka la daadiyay oo qudha la gooyay. Roomaanka waxaa laga hareeyay dhinacyada si dhammaystiran ayaa loo baabi'iyay ciidamada Roomaanka. guushii Hannibal ee Cannae waa mid ka mid ah taatikada ugu weyn ee taariikhda militariga. toddobaatan kun ee ciidamada Roomaanka galab qura ayaa go'ay. tirada dhimashada waxa ay ka badan tahay dagaalkii Gettysburg. Roomaanku imika waa sagxadda. laakiin sida caadiga ah ee Roomaanka waa ay diideen in ay isdhiibaan. This is a fight to the death for the survival of Rome. kani waa dagaalkii dhimashada ee badbaadada ciidannada. imika Hannibal waxa uu doonayaa askar badan ee loo daabulo Roma cariga madaxtooyada boqortooyada Roomaanka. waxa uu dirayaa dhambaal ku wajahan walaalkii Carthage si loo xoojiyo cuduudda iyo saanada militarigiisa. laakiin golihii ayaa ka hor yimid oo diiday. Hannibal ayaa kali istaagay. xoojin la'aan Hannibalna uma socdaali kala Roma. waa Roma taariikhduna waa 210kii ka hor dhalashada Ciise. Roomaankuna waxa ay ka faa'iideysanayaan ismariwaaga. waa Talyaaniga 6 bilood ayaa laga joogaa xasuuqii ku habsaday Roomaanka. Publius Cornelius Scipio ayaa duulaan ku qaaday Spain. Scipio
waxa uu ku dhuftay Carthage-ta cusub. waxa uu cagta mariyay magaaladii. kadib Scipio waxa uu soo wajahayaa Afrika. waxa uu kaga adkaaday reer Carthage banaanka weyn. Hannibal ayaa lagu qasbay in uu ku laabto Afrika si uu u badbaadiyo Carthage. waxa uu ka kortagay dhufaysyada ciidamada Roomaanka ay ka qoteen Zama. xilligan Hannibal waxa uu wataa cuduud xoogan ee ciidamo isku dhaf ah. laakiin Scipio ayaa adkeeyay amniga sababo la xiriira qatarta fardooleeda Numidia. Hannibal waxa uu dirayaa maroodayaashii dagaalka ee loogu cabsida badnaa. laakiin Scipio waa uu garan og yahay sida loo daafaco. maroodiyaashii ayaa argagax beeray waxa ayna u jeesteen hogaamiyayaasha dagaalka. Scipio waxa uu leeyahay taatika uu ku hago. fardooleediisii Numidiyaanka ayaa gadaal u rogay cagta. waxa ay burburiyeen ciidamadii Carthage-ka. Hannibal waxa uu ka lumayaa imika jihada. waxa uu faarujiyay goobtii dagaalka. waxa uuna ku dhammaynayaa noloshiisa masaafurin. kadib jabkii ciidamada reer Carthage ku gaaray Zama, taariikhduna waa 202 ka hor dhalashada Ciise. Carthage-kii ayaa lagu qasbay in ay ogolaadaan heshiiska nabadeed ee Roomaanka. waana in ay bixiyaan cadad lacageed ee xoogan abid taariikhda. waxaana lagu kalifay in aanay dib u dhisin ciidan ilaa ay ogolaansho ka helaan boqortooyada Roomaanka. tixanaha saddexaad halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. inta aynu tixanaha afraad ka gaadhi doonno waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh. maalin wanaagsan. si aad ula socoto tixanayaasha xiga rukumo channelkan lana wadaag saaxiibadaada. mahadsanid.